بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. hantida waa qayb ka mid ah arsaaqda, laakiin waxaa jira risqi caafimaad, risqi caruur, risqi cuno, risqi barako. sidoo kale nicmad walbo rabbi uu bixiyo waa risqi. risqiga ma ahan keliya hantida aad gacanta ku haysato waa waddadii aad ku xoroobi lahayd, halka hantidaad adiga raadinayso ay tahay waddadii lagugu adoonsan lahaa. taasoo micnaheeda ah haddii aad tahay qof iskiisa u shaqaysto waxaad tahay qof xur ah, laakiin haddii aad tahay qof dad kale u shaqeeyo waxaad tahay qof la adoonsado. dadka saboolka ah waxay aaminsan yihiin in farxadda ay ku jirto hantida, laakiin dadka hantida leh waxay bixiyaan hantidooda si ay u helaan farxadda. hantida waxay asturtaa ceebaha kuwa hantida leh, halka saboolnimada ay qarido wanaagga dadka saboolka ah. lacagta farxadda ma keento, mana keeni doonto mustaqbalka, sababtoo ah mar waliba ay lacag ku siyaado waa mar waliba uu damacaga bato, mas'uuliyadda ay kugu sii siyaado. ninka xigmadda leh waa kan hantida maskaxda ku haysta ee aan qalbiga ku haysan. hantida ma ahan furaha guusha. iska ilaali inaad lacag bixiso intaadan lacag kasban. lacagta wax walba kuma iibsan kartid, laakiin haddii aad haysatid waxaad ku hagaajin kartaa xiriirka aad dadka kale la leedahay. dadka intooda badan lacagta waxay ku bixiyaan waxyaabo aysan jecleen, keliya si ay dadka kale u dhahaan hebel waa hanti leh. bini'aadamka haddii la isugu daro hanti iyo caafimaad xitaa ma laga yaabo inuu joojo isweydiinta farxad inuu heeseeyo in kale. farxadda ma ahan quruxda, ma ahan hantida, ma ahan awoodda, ma ahan caafimaadka. farxadda waa sida saxda aad u adeegsato waxyaabaha aan soo sheegno oo dhan. quruxda ninka hodanka ah waa deeqsinimada. quruxda ninka saboolka ah waa qanacsanaanta. quruxda haweeneyda waa dhowrsanaanta. haddii aad rabto inaad ogaato qiimaha hantida, isku day inaad soo amaahato. qofkii u arka in hantida wax waliba ay qaban karto, waxaa suurtagal ah inuu wax waliba u sameeyo jaceylka hantida awgeed. haddii aad hantida madaxa saarato waxay ku geynaysaa meel hoose, haddii aad cagahaaga hoostooda dhigto waxay kuu qaadaysaa meel sare. shayga ugu qaalisan ee noloshaada waa shayga aan lagu iibsan karin lacagta. haddii aad ka dhigto lacagta waxa keliya aad ku farxdo, farxaddaada waxaad ku xirtay waxaan waarayn, maxaa yeelay lacagta way dhammaataa. hantida waxay tahay isha khayrka kuwa wanaagsan, waxayna tahay isha sharta kuwa xunxun. nin gabayaa ahaa wuxuu dhahay: uma arko farxadda in la aruursado hanti badan, laakiin qofkii rabbi ka baqa xaaraantana ka dhowrsada ayaa ah midka faraxsan. cabsida rabbi ayaa zaadka midka ugu wanaagsan ee la kaydsado, sababtoo ah dhammaanteena waxaan nahay kuwa rabbi xaggiisa u socda. sida darteed shakhsiga muuminka ah waa inuu noqdaa mid ka cabsada rabbi subxaanahu wa tacaala, deeqsi ah oo wax bixiya, naxariisna leh. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku dhahay: qaala allahu tacaala: lan tanaaluu albira xataa tunfiquu mima tuxibbuun wamaa tunfiquu min shayin faina allaha bihi caliim. sadaqa allahu alcadiim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول العمر. رواه البخاري. aayadahan iyo axaadiistan waxay nagu boorinayaan inaan wax bixino, dadkan aanu samafalno. haddii aad daawatay fideogan ilaa dhammaadka, ha iloobin inaad channelka subscribe garayso, fideoga like saarto si aad u hesho wax waliba cusub oo faa'iido leh. haddii eebba idmo. asalaamu calaykum.